السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا نلا سعوتاي كسو دوادا وراركي ودنبي دالكين إثيوبيا قضبادان دين هاينانا waxaa kamida 98 qof oo xiriir la lahaa kooxda TPLF iyo Sheena ayaa gacanta lagu dhigay sidoo kale guddiga sare ee fulinta bayaanka xaaladda degdega ayaa awaamir siiyay saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka sidoo kale magaalada Addis Ababa ayaa sagootin loogu sameeyay dhalinyaro ku biiray ciidanka qaranka ee dalka si ay u difaacaan qarannimada dalkeena Itoobiya qodobka kale in haynana waxa weeye golaha wakiilada shacabka ee dalkan Itoobiya ayaa ansixiyay bayaankii ku aadan xaaladda degdega ee dalka la geliyay kaasi oo ka soo baxay golaha wasiirada ee dalka maantana la hordhigay golaha wakiilada shacabka intaasi waa qodobadaan idin hayno haddana ku soo dhawaada iyagii oo fidsan 98 qof oo xiriir la lahaa kooxda TPLF iyo Sheena ayaa gacanta lagu soo dhigay taliyaha booliska deegaanka Bishaangul Cabdicasiis Maxamed ayaa sheegay in gacanta ku soo dhigeen 98 qof oo xiriir toos la lahaa kooxda TPLF iyo argagixisada Sheena shakhsiyaadkan ayaa lagu soo qabtay howlgallo amni oo ay qaadeen 22 Diqimtii 2014 tirsiga taariikhda Itoobiya hay'adaha amniga ee booliska ee deegaankaasi Bishaangul waxayna sheegeen inay xiriir toos la laayeen kooxda argagixisada ee TPLF iyo kooxda Sheena raggan ayaa la sheegay inay wateen laptopyo kombiyuutarro iyo alaabo kale xilli ay sameynayaan muuqaallo loo adeegsan karo in lagu argagixin karo dadka deegaanka ugu dambeyntii waxa uu sheegay taliyaha Cabdicasiis Maxamed inay la shaqeynayaan booliska deegaanka Oromada sidoo kalena xasilinta aaga ay isku kaashanayaan ciidamada gaarka ah ee dawladda deegaanka Amxaarada oo loo sii marayo aaga beeralayda sidoo kale war degdega guddiga sare ee fulinta bayaanka xaaladda degdega ee deegaanka ayaa awaamir shaqo siiyay saraakiisha xoogga gaarka ciidanka si ay u qabsadaan howlahooda shaqo sidoo kale magaalada Addis Ababa ayaa sagootin loogu sameeyay dhalinyaro ku biirtay ciidanka qaranka ee dalka magaalada Addis Ababa ayaa waxaa xaflad sagootin loogu qabtay dhalinyaro dalka xilal hogaamineed leh ka hayay xafiisyo kala duwan ee caasimada dalka ka ay oo ku biiray ciidanka qaranka munaasabadan oo ka dhacday garoonka Ababa Biqila ayaa waxa goobjoog u ah duqa magaalada Addis Ababa Adenaj Ababa iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda qodobka kale golaha wakiilada shacabka dawladda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa ansixiyay bayaankii ku aadan xaaladda degdega ee dalka laga hilgelinayo kaasi oo ka soo baxay golaha wasiirada ee dalka maantana la hordhigay golaha wakiilada shacabka golaha ayaa sidoo kale ansixiyay guddiga fulinta bayaanka xaaladda degdega ee la soo hordhigay waxayna u doorteen mudane lama tasama gudoomiyaha guddiga fulinta xaaladda degdega ee dalka lagu soo rogay iyo gudoomiye ku-xigeenna u doortay Marwo Warqasamu Maamu bayaankan ayaa lagu sheegay inuu yahay mid laga hortagayo halista wadanka ku soo food leh ee ay horkacayaan kooxda argagixisada ee TPLF golaha ayaa dood kadib ansixiyay bayaanka waxauna goluhu ku ansixiyay cod dheeri ah akhyaartana la socotay inta waxa inoogu dhan wararkii caawan idinka haynay dalkan Itoobiya intaan warkan war lamida ku kulmi doona akhyaarta nagala socotay waxaan haddaad nagu cusubtiin like iyo subscribe ha naga hilmaamina tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo amaana Allah